السلام عليكم walaalyaal waa walaalkiin Fiqi Axmed. Hadda waxaan rabaa in hordhac iyo xoogaa cashan qaadano. Hordhaca mucaamalaadka tijaarada iyo xoogaa tusaalooyin ah. Mucaamalaadka madaniga waa muhiimada nolosha maalmeedka. Tijaaradu waa laf-dhabarka dhaqdhaqaaqa bulshadeena una baahan sharci. Sidaa daraaddeed waa in uu qof waliba garanayo ujeedkeenu in aan ka bixino tilmaam fasiraad. Fahamku waa shayga waa qayb ka mid ah xukunkiisa. Sidaa daraaddeed waxaan ka bixinaynaa sawiraad oo na gaarsiinayo xukun. Kadib waxaa ku soconaynaa tilaabooyin qaanuuneed madaniga Soomaaliyeed iyo fiqiga Islaamiga. Waxaan rabaa in aan marka koowaad qeexo waa maxay qaanuun. Qaanuunku waa koox qawaacid ah oo nidaaminayso dad. Waa koox qawaacid ah majmuucatan qawaacid waa koox qawaacid ah waxayna sameynaysaa in ay nidaamiso dad ومجموعة من القواعد تنظم الناس kaasoo ku waajib ah in ay raacaan. Dadkaas oo kooxda ah waxaa ku waajib ah nidaamka aynu soo sheegnay in ay raacaan. Xukuumadna ay awood u leedahay. Qaanuun waa koox qawaacid ah oo nidaaminayso dad kaasoo ku waajib ah in ay raacaan. Xukuumadna ay awood ku leedahay. Hadda waxaan rabaa in aad ila ogaatiin qodob ka mid ah xeerka madaniga Soomaaliyeed 1974 July. Heshiiska waa qeexida heshiis waa maxay? Qodobka 88 wuxuu sheegayaa heshiisku wuxuu ku guntamayaa isla markaana labada dhinac isdhaafsadaan rabita ku cadeynaya ogolaanshahooda iswaafaqsan iyadoo la ilaalinayo isla markaas wixii qaab ah ee sharcigu u farayo si loo gaaro heshiiskaas. Qodobka 88 waa qeexida heshiis. Tiirarka heshiiska waxaa loo baahan yahay inaan 3 tiir u lahaado heshiiska aynu galayno. 3daas tiir mid hadduu ku maqan yahay heshiiskaas ma dhammaystirno. Labada dhinac oo leh rabitaan rida arrin ahaan ayaan dhihi karaa. Tiirka labaadna mawduuc halka walaxda uu ku dhacayo heshiiska carabi ahaana maxal. Kan saddexaadna sabab carabi ahaan waxaan dhihi karnaa rida maxal والصواب. waxa ay ka yiraahdeen ahlu cilmiga fiqi al-islaami qeexida beeca, noocyada beeca, tiirarka beeca iyo shuruudaha loo shardiyo waxa ay ku heshiiyaan labada daraf. Haddaan usoo laabano qeexida beeca waa maal in lagu bedelo si gaar ahaaneed. maal in lagu bedelo si gaar ahaaneed. carabi ahaana waxaynu oran karaa beec waxa waaye muqaabalatu shay bishay. Shay ayaa bixine shay kale ayaa hele. Noocyada beeca waxaynu soo qaadan karnaa ilaa 4 nooc. Nooca koowaad waa iibin oo ay arkeen labada daraf. Kan labaad iibitaan kaasoo ay ahaato dimada. Kan saddexaad iibitaan shay maqan ama yaala
kaasoo ay arag labada daraf iibin manfaco kan koowaad haddaan usoo laabto iibin oo ay arkeen labada daraf shayga waaba yaala labadan daraf oo heshiinayaan wayba arkeen kan labaadna iibitaan kaasoo ay ahaato dimadda waxaa waaye qofka korkiis ay ahaatay kan saddexaad iibitaan shay maqan aa la iibinaa ama yaala kaasoo ay arag labadan daraf shayguu maqan yahay amase wuu yaala laakiin labada daraf ma arag kan saddexaad iibin manfaco maxaa waaye sida kiro oo kale qofka manfaca u iibinaa kiro waaye laakiin shay ma iibinayo tiirarka beeca waa 3 labo daraf in la helo waxaa lagu heshiiyey inay jirto iyo qaabka heshiiska u dhacayo haddaynu aan imaano shuruudaha loo shardiyo waxa ay ku heshiiyaan labada daraf ilaa 3 shardi ayaa jira shuruudaha badan laakiin ilaa 3 shardi ayaan kasoo qaadanaya shardiga koowaad waa in uu ahaado waxa ay ku heshiinayaan mid daahir ah shayga labada daraf ay ku heshiinayaan in ay ahaato mid najaaso ah sax ma in ay ku heshiiyaan shardiga labaad waa in uu ahaado waxa ay ku heshiinayaan mid la faa'iideysan karo labada daraf waxa ay ku heshiinayaan mid faa'iido leh inay ahaato shardiga saddexaad waa in uu ahaado darafka shayga uu ahaado mid uu leeyahay ama loo wakiishtay in uu ku tasarrufo tusaale ahaan labadan daraf mid ka mid ah shayga inuu asu leeyahay qofka waxaa waaye mulku lilwilaaya asaga ayaa leh amse loo wakiishtay qofkan waxaa la dhahay adiga ku wakiishtay waa hibeyn kartaa waa beecin kartaa iyo wax la mid ah hadda waxaan jeclaystay inaan halkaas casharka ku sumo waa walaalkiin Fiqi Axmed waad mahadsantihiin